وحسين شري يرجعل marka damacda wax badan oo adduunka aad joogto istra wax xun oo adduunka dhiman ma jiraan waxaad arkaysaa wax alla yaabto runtii waxaan aad ula yaabanahay aad moodayso dadku inaysan waxba ogeyn oo yihiin caamo oo adduunka aan la socon dawladda 9 bari xildhibaankii dawladdaas doortay baa intuu dhaqaaqo oo baxo oo wadan dariska ah oo Soomaaliya aan ognahay micnaha inay hagaagta aan doonaynin baa intuu tago oo xildhibaanada kala u yeerto oo halka la iskugu tago ayaa la leeyahay dawladda hal gurido oo dawladda la ridahay ma dawladda 9 bari sabaysanba ilmo markay dhashaan ilmuhu uu dhasho ilaa uu aqliyaysto waxba looma dirsado lama canaanto hadduu ooyo waa la qaadaa 9 cisho dawlad dhisan oo meel cilaa oo gabaahira loo dhiibay ayaan mucaarad ku noqonayaa oo waxaan la baxayaa magac cajiiba oo dadka soo jiita war dawladdan dadka shacabka Soomaaliyeed ay doorashadiisa iyo dareenkooda ayay ku timid waxaan rajaynaynaa oo aan isleenahay inay dawlad fiican noqoto hadday noqon weydana annagay noo taala inaan ka soo horjeysano laakiin nin jaga doonaya oo jaga markuu waayay ama meesha iska waayay doonaya inuu dadka magaranaysa soo magoogo oo aan ognahay inuu yahay jawaasiis u shaqeeya Ethiopia iyo Kenya u shaqeeya annagu warkiisa ma dhageysanayno ummadda Soomaaliyeed ma dhageysanayso dadka Soomaaliyeed shacabkuna ma dhageysanayaan waxaan aan idin leeyahay haddaad moodaysaan gabra inuu Soomaaliya ka tagay wuxuu ka tagay 10 gabra oo Soomaaliya hadda gabra Soomaaliya oo badan baa soo baxay reer gabra la yiraahdaa ilma gabro way dareemayna wallahi cid in ka yeelaysana inaysan jirin dawladdaana hadday xumaato annagoo shacab ayaa diidayna adinku ma diidi kartaan annaga diidayna annaga dareenkayaga lagu keenay ku samaysantay challenge baan siinayna waqti baan siinayna nin jawaasiisa oo Ethiopia Kenya u shaqeeyana ka yeelmayno waa mid baan idin ognahay in la socona maxkamad baan la soo taagi doonaa aqalka dambe xilkana waa la ka qaadi doonaa waxaan ka codsanayaa gudoomiyaha baarlamaanka inuu xilka mid u ka qaado sababtu waxa weeye suurtagal ma noqon karto dawlad halka la dhoobayo dibadaha iyo adduunka looga yeerayo oo reer Europeanki iyo Mareykanka ay doonayaan inay iyo Carabu inay habeeyaan baanu ayaana moosho ka soo oogayna cid ka yeelaysa ma jirto gudoomiyaha baarlamaanka waxaan ka codsanaynaa in uu maxkamad soo taago hadduu soo taagina mid walba farta uu ku fuuqo dadka shacabkan uu u sheego si ay ninkaas dhagax ugu dilaan waa maasantii